يا يفتيك أنا برنو. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku soo dhawow koorsada qoraalka Ingiriisiga. Maanta waxaan ku qaadan doonaa aqoon muhiim u ah qof walba oo raba inuu wax ku qoro Ingiriisiga, taasoo ah isticmaalka xarfaha waaweyn ama capital letters. Casharkan wuxuu qayb ka yahay aasaaska qorista Ingiriisiga ama fundamentals of English writing. Waxaan ku baran doonaa xilliyada ay muhiim tahay in la isticmaalo xaraf weyn ama capital letter halkii ama meeshii aad ka isticmaali lahayd xaraf yar small letter. Isticmaalka xarfaha waaweyn waxay muhiim u tahay in qoraalkaaga uu noqdo mid xirfadaysan. Sidoo kalena waxay muhiim u tahay in qoraalkaaga la fahmo. Sidaa darteed waxaa u baahan tahay inaad ogaato toddobadan rule ama toddobadan meel ama toddobadan xeer ee muhiimka u ah inaad fahanto xilliga aad u baahan tahay inaad isticmaashid capital letter instead of small letter. Xaraf weyn halkii aad ka isticmaali lahayd xaraf yar. Rule number 1. Always capitalize the first word of a sentence. Oo micnaheedu yahay xeerka koowaad mar walba waxaad weynaysaa xarafka uu ka bilaabanayo ama ay ka bilaabanayso jumladda. Kaasna waa xeerka koowaad. Wuxuuna dhigayaa mar walba oo jumlad cusub aad ka bilaabayso hadalkaaga waa in xarafka koowaad ee jumladdaas ay ka bilaabanayso la weynayo. Tusaale ahaan, she's my teacher. Xarafka koowaad waa S, sidaa darteed S waa la weynaynayaa. Are you coming with us? Xarafka koowaad waa A, sidaas darteed waa la weynaynayaa. Wow, that was amazing. Sidoo kale xarafka koowaad ee ah W waa in la weynayaa. Oh no, I forgot my keys. O waa in la weynayaa oo ah xarafka koowaad. Sidaa darteed mar kasta oo aad bilaabayso jumlad cusub, ereyga ugu horeeya waa in lagu bilaabaa xaraf weyn. Hase ahaatee mar walba qoraalka ma aha mid sahlan oo ka kooban hal jumlad. Waxaa laga yaabaa inay jiri karaan qoraallo ka kooban 2 jumladood, 3 jumladood iyo 4 jumladood iyo wixii ka badan. Ama 2 sentence, 3 sentence ama 4 sentence iyo wixii ka badan. Inta aadaan isla fahnay waa inaan ogaanaa waxa kala qaybin kara 2 jumladood. 2 jumladood waxaa u dhaxayn kara period ama dot ama full stop ama waxaa u dhaxayn kara question mark ama waxaa u dhaxayn kara exclamation mark ama wixii la mid ah. Oo micnaheedu yahay waxaa u dhaxayn kara dot ama calaamadda su'aasha ama calaamadda la yaabka exclamation mark. Haddaba isla qaadano tusaalooyinkan soo socda. The sun is shining. It is a beautiful day. Sidaa arki karto, qoraalkan wuxuu ka kooban yahay 2 jumladood. Jumladda koowaad ee ah The sun is shining. Jumladda labaadna waa It is a beautiful day. Labadan jumladoodna waxaan ku dabaqi doonaa ruleka ah ama xeerka ah xarafka koowaad ee jumlad walba ay ka bilaabanayso waa in la weynayaa. Sidaas darteed, jumladda koowaad ee ah The sun is shining waxay ka bilaabatay xarafka T waana la weynaynayaa. Sidoo kalena jumladda labaad ee dhacda dotka kadib ee ah It is a beautiful day iyadana waxay ka bilaabatay I. Sidaas darteed I-da waa in la weynayaa. Tusaalaha labaad waa 2 jumladood oo ay u dhaxayso question mark sida soo socota. Are you coming? I hope so. Jumladda koowaad waxay ka bilaabanaysaa A, jumladda labaadna waxay ka bilaabanaysaa I. Sidaa darteed labada xarfood ee ah A iyo I ee dhaca labada jumladood ee ay u dhaxayso question mark labadaba waa la weyneeyay sida arki karto. Tusaalaha ugu dambeeya wuxuu dhigayaa 2 jumladood oo ay u dhaxayso exclamation mark ama calaamadda la yaabka. Sidaan horey u soo marnay waana sida soo socota. Wow, that was amazing. Sida arki karto, tusaalaha qaybtiisa koowaad ama jumladda koowaad waa wow. Jumladda labaadna waa that was amazing. Sidaas darteed waxaa lagu bilaabay xarfo waaweyn labadaba W iyo T. Intaas waxaan uga bixinaa xeerka koowaad ee ah mar walba weynay xarafka koowaad ee ay ka bilaabanayso jumladda.